shirkadda Telesom waa shirkad isgaarsiineed oo ka shaqeysa guud ahaan dalka Somaliland waana shirkadda ugu ballaaran ee bixisa adeega moobilka kaas oo inta badan bulshada reer Somaliland adeegsato iyadoo bixisa adeegyo kala duwan ay dadweynuhu isticmaalaan hay'adda shirkaddan Telesom ayaa bulshada badankeedu kaga cabatay inay tahay mid adeegyadeedu ay qaali yihiin isla markaana aanu naxayn macaamiisheeda sida ay tibaaxeen qaar ka mid ah dadweynaha reer Cerigabo oo TV-ga caalamiga Universal TV la hadlay marka laga hadlayo way yiraahdeen lacagaha ku hadalka SIM card-ka ee airtime-ka loo yaqaano ee shirkadda Telesom dadweynuhu ka iibsadaan si ay ugu hadlaan waa kuwa ka qaalisan isla markaana ka xawaaro sareeya marka la barbar dhigo adeega airtime-ka ay bixiyaan shirkadaha kale ee isgaarsiinta ee dalka sida Somtel iyo Golis sidoo kale marka isagana la eego dhanka lacagaha lagu shubtay qaybta internet-ka SIM card-ka ee loo yaqaano xidhmooyinka internet-ku waa kuwa ka qaalisan qiimaha xidhmooyinka ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiineed ee dhigeeda ah iyadoo halkan aad ka arki karto isbarbardhigga farqiga u dhaxeeya qiimaha xidhmooyinka internet-ka ee shirkadda Telesom iyo Golis shirkadda Telesom waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa adeega xawlaadda lacagta ee mobile money transfer-ka loo yaqaano adeegaasi oo ah mid dadku lacagaha si hawl yar ugu kaydsadaan moobiladooda gacanta isla markaana badanka laga maarmo lacagihii shilinka ah ee jeebka lagu qaadan jiray ayaa xukuumadihii Somaliland ee kala dambeeyay waxay u arkeen inuu adeegaasi sabab u yahay inuu qiimo dhaco shilinka Somaliland isla markaana uu qayb ka yahay sicir bararka ka jira dalka iyadoo xukuumadda Somaliland uu gadhwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi ay dhawaan amar ka soo saartay isticmaalka saadka amarkaasi oo ku wajahanayna in adeegaasi la isugu diri karin wixii ka yar $100 haddaba qaar ka mid ah magaalooyinka Somaliland oo Cerigabo ka mid tahay ma uu saameyn amarkaasi waxaana weli si caadi ah looga isticmaalaa qaybta dollarka ee adeegaasi iyadoo la isugu diro $100 iyo wixii ka yar waxaana amarka xukuumaddu uu noqday mid aanay shirkadu sideeda u fulin isla markaana u muuqday mid ay ka dhaga adeegtay shirkadda Telesom goboladaasi ma kuwa shirkadda Telesom aan Somaliland u xisaabsanaynba muxuu uga shaqeyn waayay amarka xukuumaddu waa su'aasha ay isweydiinayaan qaar ka mid ah bulshada reer Somaliland haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha reer Cerigabo oo dareenkooda ka dhiibanaya arrimaha aynu kor ku soo xusnay halka waxaanu ka cambaareynaa oo cambaar dhakada uga tuureynaa shirkadda Telesom oo ummadda reer Somaliland gaar ahaan gobolka Sanaag dib ku haysaba xawaari internet-ka day waa kordhisay prepaid-kii dadku waa ku kordhisay lacagtii e-cash tahaydna haddaad hadda u tagto tiraado lacag e-cash-na igu shuba lagugu shubi maayo waxa lagu oranayaa shirkaddii baanu ka dalbaynaa in suga marka run ahaantii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ku dhawaaqay in lacagta e-cash-ta la isticmaalay saad la joojiyo gobol ahaan Sanaag hadaan sidii joojiya la qabsada lacagta shin Somaliland shirkaddii Telesom kama hayno shirkadaasi dib iyo aafo badan bay gobolka ku haysaa shirkadda waxa laga qabto runtii way kala duwan yihiin shirkaddu xayeysiisada iyo qaabka ay dadka dadweynaha ugu soo bandhigto xayeysiisada iyo adeegga ay dadka u qabato runta ah waxa marar badan aniga ugu dhacday in badan aan lacagta isticmaalka ama internet-ka aan ku shubanayo habeenkii horta oo kale inta badan fiidiyoda lagu daawanayo dad waxa weeyaan markiiba waxa weeyaan waad waayaysaa lacagtii meel ay martay ku shuba message buu ku soo diray lacag ku hadhow yartay $1 baad ku shubay $2 baad ku shubay daqiiqadiiba waxaad arkaysaa iyadoo MB-giina uu ku soo diray xaggana MB-giiba kaaga soo diray intaas MB baad heshay intaas kugu shaqeynaysaa waana hadhowna daqiiqada kooban oo yar bay shaqeynaysaa shirkadda Telesom waa shirkad u soo shaqo tagtay bulshada runtiina bulshada oo aad u isticmaashay awgeed ayay waxay ka dhisatay dabaqyo aad u fara badan waxay bulshada ku soo celisaan haba yaraatee ma jirto internet-ka oo noqday mid markaasi aanad isticmaali karin laga oranayo bishii intaasaad ku isticmaalaysaa haddana wax ka soconayaan aan ahayn tii ku hadalkii oo daqiiqad aanad ku hadlayna markiiba ay go'ayso tan iyadu wax urursi un bay watay dhaqaale urursi ay markaas sameynayso inay bulshada lacagteeda jeebkooda ay baarato haddii aad ku shubatid waliba qaybta e-voucher-ka ama ku hadalka lacag baad ku shubanaysaa aroorta la soo toosimaysid marka anagu hadda waxaan ugu magac darmala 12 habeen ku soo gudaysaa wala baxaysaaba maxaan ku raadiyay tan internet-ka oo kale waa la mid shirkaddii markaa waxeedii xagga sixir bararkeen hawadaba ku sharartaba shirkaddii markaa anagu waxaan u aragnay haddaanu heer Cerigabo mid ama dalka oo dhanba mid iyadoo danteed u adeeganayso maxaan ku danteed ka fujinaysa aan in yar oo naxariisana lahayn xukuumaddu waxay soo saartay in la xayirayo saadkeedu weli alanka waa shaqeeya markaad eegto dalka gebigiisaba waa caqabada koowaad ee hortaagan mujtamaca markaad weydiiso xitaa xagga ku shubashada waa shirkadda qori la yiraahdo soo guda
habeenkiiba dadka ku soo guuraysaa hadaba fahamtay iminka haddaad ku shubato 50 senti ama aad ku shubato $1 ويونس شيخ أحمد Universal TV عرقابو